5 Abriil 1943 xilli galaba, 3 kalluumaysato reer Brazilian ah ayaa xeebta waxay ku arkeen muuqaal ay garan waayeen waxa uu yahay. Kadibna doomahooda ay u dhaqaajinayaan dhanka muuqaalkaasi, waxayna halkaasi kula kulmayaan muuqaal fajicisa ku noqday. Waxay arkayaan nin Chinese ah oo xiran oo saaran doon ka samaysan alwaaxyo iyo qoryo la isku xirxiray. Kadibna ninkan ayay ku weerarayaan luqadda uu ku hadlayo, waxayna u yeeranayaan qof u kala tarjuma iyaga iyo ninkaasi. waxaan ugu sheegaya magaciisa in la yiraahdo Pon Lim. Ku soo dhawaada qisada ninkan cajiibka ah. Pon Lim wuxuu ku dhashay jasiiradda Hainan ee ku taal koonfurta Shiinaha 1918 waxaana kasoo jeedaa qoys kalluumaysata ah. Dabayaaqadii 1920-aadkii boqortooyadii Jabaaniiska ayaa waxay qabsanaysaa dhulweynaha Shiinaha. qoyska Pon Limna waxay u qaxayaan Malaysia, laakiin markii uu soo weynaaday Pon Lim wuxuu ku cajisayaa nolosha Malaysia, waxaana shaqaale ka noqonayaa markab ganacsi oo laga leeyahay Ingiriiska. laakiin wuxuu la kulmayaa waxuusan filayn kadib markii la cunsureeyey isla markaana mushaar yar la siiyey isaga iyo dad kaliya ee Eeshiyaanka ahaa. Pon Lim dulqaadka ayaa ka dhammaanaya uuna isaga soo tagaya shaqadan waxaana imaanaya Hong Kong, Thailand. laakiin isla markiiba boqortooyadii Jabaaniiska ayaa qabsanaysa Thailand. mar kale ayuuna isaga soo cararaya Thailand, waxaana mar kale shaqaale ka noqonaya markab ka shaqayn jiray kala gudbinta hubka dagaalkii labaad ee adduunka oo lagu magacaabi jiray Ben Lomond. maalin maalmaha ka mid ah markabkan oo kasoo kicitamay Cape Town, South Africa kuna sii jeeda Washington DC ayaa waxaa soo weeraraya maraakiibta dagaalka ee Hitler, waxayna ku dhufanayaan 2 gantaal oo loo yaqaano nooca torpedo-ga. halkaas ayuuna ku gubnaya markabka. dhammaan 54 qof ee la socotayna way dhimanayaan markii laga reebo Pon Lim. Pon Lim keligiis ayaa soo dabaalanaya badda maalintii oo dhan, laakiin suxan ayuu u daalaya, nolosha ayuuna ka quusanayaa. nasiib wanaag si lama filanayo ula kulmaya doon ka samaysan alwaaxyo iyo qoryo la isku xirxiray. doonta yarid ayuuna ku boodaya. nasiib wanaag doonta waxaa saarnaa sanduuq ay ku jiraan waxyaalo naftiisa uu ku badbaadin karo sida toosh, biyo, sokor iyo waxyaalo kale. kadibna wuxuu si degdeg ah u iqtiraacaya qalab kalluumaysi, waxaana ka sameeyey nuxaas oo ka dhex helay sanduuqa badbaadada. qabsatooyinkana wuxuu ka sameeyey cidiyo ku daadsanaa sanduuqa gudihiisa. kadibna wuxuu ku dhejinayaa haraaga buskud uu ka soo xoqay sanduuqa. isla markiiba malaaygii u horreeyey ayuu kasoo dhifanayaa badda, hilibkiisana wuxuu ku jarjarayaa dabool daasad, meesha ayuuna ku cunayaa isla markiiba. kadibna wuxuu isticmaalayaa haraadigii malaayga inuu kusoo dabto kalluun kale oo badan, laakiin isagoon garanayn intay sii jiri doonto dhibaatadan wuxuu ku qalajistay qayb ka mid a hilibkii malaayga qorraxda si uu markaa loogu isticmaalo. dhowr usbuuc markii uu badda dul sabaynayay Pon Lim waxaa ka kacay badda duufaano iyo dabaylo waaweyn, waxayna mar kale mugdigeliyeen nolosha Pon Lim, halka doontiisa yareed ay dhex muquurinaysay mawjadaha buuraha la-eg ee badda. sahaydiisii iyo kalluunkii uu qalajiyeyna dhammaan waxaa qaaday duufaanta. Pon Lim wuxuu noqday mid oon, gaajo iyo niyad-jab isugu darsameen. kadib wuxuu ka fikirayaa sidii uu qabsan lahaa shimbiraha badda ee dul wareeganaya doontiisa yar, wuuna ku guulaysanayaa. laakiin ma aha mid ku degdegaya cunitaanka hilibka shimbiraha, wuuna diriirimayaa islamarkaana wuu qalajinayaa. dhowr maalin kadib ayuuna cunayaa. markii dhibaatooyinkan oo dhan ay dhacayeen, Pon Lim wuxuu ahaa mid ku bukoonaya qabowga badda iyo kulaylka qorraxda. laakiin arrinta naxdinta leh ayaa waxay ahayd markuu arkay markab una gacan haatinayaa, laakiin way iska inkirayaan. xitaa shaqaalaha markabka ayaa waxay soo istaagayaan sagxadda kore ee markabka, waayo naftooda ay uga baqeen sababtoo ah waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka. shaqaalaha markabkan waxaa lagu amray inaysan soo badbaadin qof noocaasa, maadaama sidaasoo kale dhowr jeer maraakiib shirqool loo geliyey. mar labaad Pon Lim waxaa arkaya diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka oo jawi hoose ku duulaya, waxayna agtiisa ku soo ridayaan qalab calaamad si ay ugu soo laabtaan una badbaadiyaan. laakiin intii aysan soo laabanin diyaaradahaasi, mar kale waxaa ka kacaya badda duufaano, mar kale ayuuna lumayaa Pon Lim. mar saddexaad Pon Lim wuxuu la kulmayaa dooni ay leeyihiin ciidamada badda ee Jarmalka, laakiin iyagana way iska inkirayaan sidoo kale, ilaa xitaa ay ku jeesjeesaan oo ay ku dhahaan Chinese indhayar ayaa tahay. intaan oo dhan markay dhaceen kadib, Pon Lim wuxuu noqday mid ka quustay nolosha islamarkaana u jihaystay geeri, wuxuuna aaminay inuu si tartiib tartiiba u dhiman doono. laakiin maadaama uu ahaa mid aad u yaqaana arrimaha badda, wuxuu arkay in biyaha badda ay degan yihiin islamarkaana kalarkooda uu yahay cagaar xigeen buluug ah, taasoo macnaheedu yahay inuu ka agdhow yahay meel xeeb ah. dhowr saacadood kadibna wuxuu arkay doon ka soo bidhaamaysa meel aad u fog. saacado kadibna waxaa soo badbaadiyey Pon Lim kalluumaysato reer Brazilian ah, waxaana la dhigay isbitaal ku yaala Brazil, halkaasi ayaana lagu dabiibay dhowr bilood. guud ahaan Pon Lim wuxuu badda dul heehaabaya ku dhowaad 5 bilood ama 19 usbuuc. markii lagu daawacay sheekadiisa wargeysyada caalamiga ahna wuxuu noqday mid soo caanbaxay. qunsulkii boqortooyadii Ingiriiska ee Brazil ayaa wuxuu go'aansanaya inuu u kaxeeyo Lim magaalada London,
halkaasina waxaa lagu guddoonsiinayaa bilad sharafeedka boqortooyada Ingiriiska. sidoo kale ciidamada badda ee Ingiriiska waxay ka baranayaan Lim farsamooyinka badbaadada muddadii uu ku jiray badda. Lim wuxuu sameynayaa socdaal caalami ah si uu uga warramo qisada naxdinta leh ee badbaadadiisa. kadibna wuxuu go'aansanayaa inuu dego dalweynaha Mareykanka, balse waa loo diidayaa dhalashada Mareykanka markii ugu horreysay. laakiin senatarka Mareykanka ee magaalada Washington, Senator Warren Magnuson, ayaa u ololeynaya Lim. ugu dambeynna uu ku guuleysanaya dhalashada Mareykanka. ku soo dhawaada asxaabay channelkayga. haddii aad u bogtay sheekadan ama mid la mid ah aad doonayso, noogu soo gudbi fikradaada qaybta commentiga.